waa geedka ay Soomaalidu u taqaano huruudda. Luqadda Carabigana waxaa lagu yiraahdaa kurkum. Dumarka Soomaalida ayaa u isticmaala qurxinta wejiga, waxaase aad looga isticmaalaa wadamada Aasiya, gaar ahaan dalka India. Culimada sayniska ayaa baxthi ay ka soo saareen ku sheegay waxtarka geedkani uu leeyahay, waxayna diidanayeen in la shaaciyo. Geedkan ayaa la ogaaday inuu sunta ka saaro muruqyada jirka bini'aadamka, wuxuuna wanaajiyaa halbowlaha waraabka wadnaha, wuxuuna xoojiyaa raganimada. Sidoo kale wuxuu kordhiyaa awoodda dhalmo ee dumarka, wuxuu kaloo furaa appetite-ka ama shahiyada, waxa uuna sunta ka saaraa ur ku jirta siiba mindhicirada ayuu sunta haraaga raashinka ka saaraa, waana sunta keenta gaaska iyo calool ololka. Wuxuuna sifeeyaa beerka iyo kelyaha oo uu ka saaro sunta. Maskaxdana wuxuu ka ilaaliyaa sunta iyo xasharaadka sababa cudurrada asaasaqa iyo kansarka iyo weliba isku buuqa ku dhaca maskaxda. Wuxuuna jadiidiyaa unugyada maskaxda ee baaliyoobay, waxaana loo isticmaalaa qurxinta wejiga, waxaana lagu baabi'iyaa xaada iyo timaha wejiga uu leeyahay, waxaana uu caddeeyaa ilkaha oo uu aad u dhalaaliyo, waxaana loo isticmaalaa sida maxjuunka oo kale. Waxaa fiican in aad ka dhigato sharaab ama aad ku darsato cabitaanka iyo weliba cunnada sida suugada iyo bariiska. Waxaa kaloo fiican, waxaana kugu filan inay caano iyo liin dhanaan aad ku miirato huruudda oo sidaa aad ku qurxiso wejiga. Like sii share garay si aad uga faa'iidaysato barnaamijyo cilmiyeysan. Waa Kitchen Cafe oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.